الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما أنت وحي نوغو مرتيا يوتيوبك ديك سموده عشا عبد الناصر حسين عثمان علي annagoo ugu talagalnay culimada deegaanka in aan taariikhdooda dhan ummadda islaamka uga faa'iideeyno taariikhdooda ay ku helaan waxaan ugu horeysiinay maanta insha Allah ta'ala sheekheena Sheekh Abdul Naasir su'aasha koowaad aan ku weydiinaya ay tahay taariikhdaada sheekh taariikhdaada insha Allah ta'ala wixii rabbi ka waafajiyo inaad naga warbixiso bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waxaan ahay Abdul Naasir Xuseen Cismaan oo dadku sheekhu yaqaanaan waalidiintay iyo qaraabada iyo abtirku wuxuu ka soo jeedaa gobolka Dooloon laakiin anu reer abtigay oo shariifa reer Sharif Cali baan ku dhexdhashay qulunqul meesha la yiraahdo oo dhagax buur 75 kiiloomitir koonfurta kaga toosan halkaasaan ku dhashay anu waxaan ka dhashay qoys culimo ah aabahay Sheekh Xuseen Cismaan Cali Cigaal adeerkay Sheekh Cabdiraxmaan Cismaan Cali Cigaal adeerkay Sheekh Maxamuud Jaamac Cali Cigaal adeerkay Macalin Aadan Jaamac Cali Cigaal adeerkay Sheekh Faarax Cabdillah Cali Cigaal awowgayna culimo la fadhi buu ahaa halkaasaan ku dhashay dhul ahaan laakiin qaraabadaydu waa gobolka Dooloon waxaan dhashay taariikh ahaan 1950 bilihii u dambeeyay 1950 bilihii u dambeeyay hooyaday baa ii taariikhisay markay tiri sanadka geeloodka la yiraahdo 74 sano kadib baad dhalatay igu tiri waxay ku aadanayd hijrada 1370 15 bisha Ramadaan oo maalin sabti ah taa adeerkay baa ii sheegay Sheekh Maxamuud Jaamac Cali Cigaal anoo agoon u yiri Abdul Naasir markaad qaan gaadho 15 ka hore waxa tahay saqiir 15 ka dambana waxa tahay qaangaad taariikhdayda dhalashadu wata qoyskan ka dhashayna waka abtigay culimo ahaa Sharif Cismaan Sharif Yuusuf Sharif Maxamed halgamayaashii Soomaali galbeedna kamid buu ahaa meeshaasaan ku soo koray anigoo afar jir ah yaa waxaan garan adeerkay Sheekh Cabdiraxmaan oo nabiga iyo sifadiisa ay baraya laakiin anoo 7 jira 750 iyo abahay dugsi quraan ugu daray 850 anigoo suuratul anbiya dhigtay oo abahay dhintay anagoo afar caruur hooyo intay bari naga rartay iyo meel sagag agteedo afmeerka la yiraahdo geyso abtiyaashay degan yihiin abtigay bay noo geyso waa meel afmeerka la yiraahdo sagag iyo dhuxun iyo garbay u dhaxaysaa qoreeraha reer abtigay degan yihiin quraanka halkaasaan ku dhameeyay in abtigay Maxamed Sharif Cismaan baa ii bilaabay kutubta anoo kutubtu ii bilaaban tahay quraankiina dhameeyay baan ka soo kacay galbeedkanaan imid anoo quraanka xaafidku kutubtuna ii bilaaban tahay magaaladan hadda Baabili leeyahay bariga igaal la dhihi jiray 63kii anoo 12 jir ayaan imid sheekh meeshan qolloji ay ku taal hoosteeda korkeeda laba xadra ku lahaa yaa la yiri cilmiga lagu shubay hadaad u tagto quraankana xaafid baan ku ahay markaan u tagay sheekhu nin indhala buu ahaa yaan arkay meelaan diiniba joogin dad laba goo Mareykaan iyo shaar Mareykaan qaba waan ka soo booday marka inaan dhaqaaqaan damcay fikrad yar oo xun baa igu jirto dadkeenu qabo oo awliyada laga hor yimaado hadaan inuu jin yahay garanayo waan iska tagi lahaa 24 habeen markaan la joogay yaan damcay inaan tago jin baa halka masigta igu dhuftay aroortii baa la ii sheegay sheekho yarkii Soomaaliga ahaa tooba keen baa la yiri oo inaad tagin waan tooba kan waa iska kacay 5 bilood haddana markaan dib raacayay yaa xatada dusha la ii bedelo geel baan raacay 8 maalmood markaan raacayaan haddana damcayna dhaqaaqo meeshii baa lagu dhuftay bil iyo 15 habeen markaan fadhiyay yani noo yar weynaa baan ilaa maalmo kitaab aan haya igu arkay marka sita awliyadu kuma galin buu yiri intaad meel dibadda u baxdo awliyadu isu ka dhiibay dhabood gurigu dayr dhagaxuu lahaa intaan dabada ku siqay oo banaan tagay yani awliyadu isu ka dhiibay waan soo kacayba meesha siqida ku tagay 2 sano iyo badh sidii kula joogo hooyo ay timid marka sheekhi weynaana marka uu dhintay waxa la yiri shariifa wiilka awliya haysato ku raaci maayo waxay tiri wiilka idinba weydiin maaye maba idin weydiinayo ana dhalay sayna way ka haysay
meeshan hadda markii toga shareed hoos loo qaado bartiraha markii laga baxo reeraha abaskuusha u sokay dhanka bidixda adeerka oo la yeelay oo sheekh reer dhagax buuri xeer kitaab ugu aqriyay ii geysay saddex kaliin bay hooyaday igaga tagtay dariiqu la joogaa ma maqli karo nin bani aadam oo ka fiican tahay inuu khidmeyn kartid adu sheekh loo khidmeeyo noqoba igu tiri waxa doontan ii weydiin adu cala kulli hal waan soo gaabin halkaasaan kala qabsaday xeertii markii hore anoo yaro de 65 yaan fiqi baan ku taxmay sheekh ilmaadeerno hadda dannood jooga oo isna daalibul cilmi ayaa gacanta isoo qabtay naxwadu ii bilaabay ajruumiga iyo amriyadiga iyo mutamimka iyo alfiyaha intaasuu ii aqriyay kutubtii intuu kitaabka isiyo ii aqri jiray khudarigu 17 iiga aqriyay intuu isagu isiyo wali waan haystaa adoo culimo kalena dawaan maray oo sheekh farayare oo aan mar la joogi jiray sheekh Cabdiraxmaan Axmed Barwadaad reedaa khataha saahan la joogi jiray kutubo badan sheekh Maxamed Ciroole marka ilaa 74 yaan arabiyada aad u dalbayay sarfiga iyo naxwaha iyo saddexda fanni oo balaaqada ah iyo mantiqa yaan aqristay wadaad baa hadana noo aqriyay goor ribidaa jooga ahadiista buluuqul maraamka iyo riyaadu saalixiin wadankeena lagu ma aqri jirin sheekhnimada markaas ay bixiyeeno kitaab kasta oo xeerta ku wada taxano waxay dhihi jireen noo soo mari inaan ka fahmo badnahay bay la ahayn anigana sheekhu markuu fadhiyo mas'ala aniga dhicin ima badhici jirin sheekh bay ugu magacaabeen 74 baa meeshan baabili hoosteeda yaa xer gooni anigu aan u wato yaa iigu horeysay hasa ahaatee dad culimadan ila joogtay ee dhalinyarada aan wax aqribaan annaka aqrisan jiray 75 tafsiir wadankeena lagu ma aqri jirin ahadiis lagu ma aqri jirin fiqiga iyo carabiga la aqrisan jiray hada magaaladan aan joogno ee Jigjiga aniga hortay wax buluuqul maraam ku aqriyay ma aan ogaanin 76 75 baan tafsiir baan u baahday Jigjigadan aan baabuur shilin ku raacay baabil buu iga go'ay halkaasaan ka lugeeyay wadaad rafiiqeeda ku aqriya dirir dhabo tafsiirka baabil baan ka lugeeyay habeenkii herer baan joogay habeenkii kale lagangaan joogay maalintii dambaan yaa waxaan tagay dirir dhabo kitaabkii baan ku taxmay suuratul ra'd isra markuu dhameeyo sheekhi naga tagay xirihii aan isbaranay ee sheekhi yaqiinay dhowr boqol oo meesha joogtaa leeyahay inta sheekhu iman nagu siisay wixii sheekhu uu aqri jiray riyaadkii baan u aqriyay iyo buluuqi iyo alfiyi waxbaan u aqriyay anu sheekhnimo nin damacsan ma ihi waxana iskama bahoosayno sheekhu ka cadhoon ismali sheekhi markuu noo yimid uu cadhooday sheekhi magaaladii in laga qaatay buu arkay waanu tagay waxaan sheekh adan ku soo xireeyay kitaabkana hal mar hadaad ay aqrido waan ka naqlin baan ku iri uu diiday sheekhi inaan kitaabkii ka aqristo nin leeyahay Sheekh Umar Abdullaahi Arab oo ani isku daahayn oo gobolka dhagax buur ku dhashay qolada jidlaha la yiraahdo reero macallin oo ani kutubtana naqliyo ku taxan baa war tafsiirka ee bilow tafsiir iyo sarf iyo mantiq gurigan seexdu iigu aqri jiray ana kutubta aan aqriyo ku taxmi jiray 7 bilood baan sidii ku wada joognay tafsiirku kala badh buu ii gaaray 76 halkan aan wadanimada intii baan soo aqri jiray tafsiirka saas iigu dhamaaday wax dhibaato ah oo diinta kala kulmay agoon baan ahaa aan ciidu maal gelinayno ciidu wax siinayna anu ba iska socday dib kale oo kala kulmay ma jiro agoonnimada mooyaane markii dambe 76 baan ka tagay doolaan tagay reerkii u horeysay baan markaa yeeshay gabadhii u horeysay aan ku curtay dagaalkii oo socday dhalatay 3 sano markaan baadiyaha joogay baan qaxootiga tagay 80kii meel hiiraan la yiraahdo beledweyne u dhawo xagga xamarka 50 kilomitir u jirta 10 sanaan halka deganaa 5 caruur ay ugu dhalatay meesha kutubtii sanadan dhameystireen markaan joogno dhar culimana ma qaba anigu kutubtii waan wataa qamiis iyo waxa de lama aqoon bariga yaa laba wadaad oo reero xasana Maxamed Axmed iyo Maxamed Sheekh Sahal baa yiri noo aqri qadriga yaa idin sheegay baan inaan aqaano oo waxay yiraahdeen luuq sheelo baan looga sheegay xerada 40,000 oo mid labaad deganayd ku tira koobnayd ilaa wax aqriyay lahayn markaas igu soo wada yaacin kulli 10 saneen meesha deganaa
naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada iyo axaadiista intaasaan u aqri jiray marka meesha dhib yar baan naga kulmo waana la dacweyn jiray waxa la dhihi jiray waa wahaabi ururo ka tirsan yihiin waxaasana la dhihi jiray laakiin wali leema xidhin xataa wadaadadii lagu xukumay dacwadeydii waa la horgeeyay wali la ima xidhin intaan meesha joogay meesha waxaa igu yimid Soomaali meelay joogto Djibouti kii ka yimid kii Nairobi ka yimid kii meel walba ka yimid isugu ka yimid dad aad u tiro badan baa isugu ka yimid marka de anigu kutubta aan aqriyo waa la iska jeclaayo laba mas'ala ugu wacnayd anu af Soomaaliga tarjumadan aqaana midda kale waligay ruux kulama heshay dad kulama heshinin inay waxaysiiyaan dad waxaysiiyay fara badan way jiraan laakiin kulama heshinin inay waxaysiiyaan haddaan dad kula heshiyo kitaabku iga joogsan ma wada karo 19 baan haddana halkii ka nimid dhibaatay wax la ixidhay ma jira laakiin dhibaatada yar waxay ahayd waana la dacweyn jiray wardheer baan imid wardheer tafsiir baan u bilaabay reeraha iyagu anu qoyska aan ka dhashay kuma taxnayno sheekh adeerkay oo sheekh Mahdi oo sheekhu dariiqa dhex joogo sheekh Mahdi buu diidan yahay bay yiraahdeen hal sana markaan wardheer deganaa waxaan tagay dhagax buur baan soo degay dhagax buurna markaan 394 dabayaaqadiisa waa kii dagaaladu bilowdeen marka qolo waxay igu dacweysay waa itixaad qolana waxay igu dacweysay waa ONLF meelan joogsadaan waay boosaasan iska tagay marka 790kii hal sanaan joogay haddana xamar baan tagay hal sanaan joogay reerkuna baadiyaha nagu degan yahay meel galdogob la yiraahdo oo wardheer xuduudkeeda ah 190 kilomitir isu jiraan niman joogo leelka sal la yiraahdo ayna noo imo nimankaan la soo degay reerkana markaasaan halka geeyay 5 sanaan la joogo 5 goor baan tafsiirka u dhameeyay Bukhariga Muslimka waanu aqriyay minhaajka qayb baan uga aqriyay naxwaha waanu aqriyay laakiin naxwuhu iyagu aad uma rabin ku yaroon dhaliyo hadda ka kuma jira yaan u bilaabay oo ilaa alfiyaha u aqriyay 2005 baan ka soo guro wardheer baan imid haddana sidii baan ku taa marka waan isku soo xoorinay meesha anugu aan tago meel kastaba ha ahaatay oo Soomaali joogto wax noo aqrin baa leeyahay ilaahay baa dadkii jeclaysiiyay anuguna waxba kama hagrado ilaa hadda jigjiga markaan imid markaan galdogob ka soo guuray yaa ku yaroon dhaliba meeshan lagu xidho wiilal dil lagu xukumay kamid aha saasan horta jigjiga weeyme masaajidkaas oo cusub bilaala yaa wadaad reerka iyagii intuu qalqaaliyay nimankooni aqooni baan ku bilaabay waa kan hadda aynu ku joognayo 3 goor baan dhamaynay tafsiirka waxa kale oo naqeen Bukhariga Abu Daawudka iyo Tirmidiga iyo Nasaa'iga Ibn Maajah anagoo wadnay inaga joojiyeen kutubtii waxa kale oo aqriyay balaaqada jawhar maknuunka iyo talkhiiska waxa kale oo aqriyay sarfiga naxwada 3 goor baan aqriyay intaan meesha joogay waa kay inaga joojiyeen 4 sano inaga joogay tafsiirku waxa joojisay qoladii inay ilay ku ileen maayo Cabdi Maxamuud ku eedayn maayo qoladii waxa joojisay kaniisadda markuu mala sanaawi suufiyaalkii baan rabnaa yaa la yiri kutubta kale hal joojiyo isagu shiicadu inay faaftuur rabay Cabdi Maxamuud isaga ani abaal baanu hayaa markii aan imideen meeshan imid oo masjid jaab ku bilaabay yaa isagu wadaadada la gangamaynayo hoolka yaa shariifani qolada reer abtiga oo shar masiixi aanu bixiyay oo timo weynaha yaa yiri waxa jooga nin galdogob laga soo dhaadhiciyay oo sunni aan ahayn oo kana Cabdi Maxamuud uu yaqiinay dhagax buur buu uga bartay wuxuu shariif nin dacayb looma baahnaa Sheekh Abdi Naasir waa sheekh ayagii dhagax buur galdogob kama iman wax la hadli karaan ma jiro ilaa iyo hadda wax diin igala hadlay ma jiro waxa mar la igu xiray yarkayga yaryarka 8 suway la geeyay baan lacag u geyn jiro nin baa yiri ninkan waa ONLF nimankaas oo lacag u geeya wax dhibaho iga soo gaaray ma jiro jigsigana saasaan ku imid waan degay guri baan meesha ninba intuu dhul iibiyo lacag ii dhiibay ma ku dhisay hadda guriga waan si taam yeelay wax dhibaato ila kulantayna ma jiro caruurtaydiina waa iska waaweynaadeen hadda oo ninka kuma jira in meeshan uu joogaayo waa shaqaale dawladeed nin meeshan uu macallin ka yahay jaamacadda nin gobolka Doolood wuxuu haystaa telefoonadiisu haystaa gabadhi Kismaayo degan caruurtaysaasi u wakaceen u waaweynaadeen anigu marka intaan soo maray taariikhda wax dhibaato ah kala kulmay oo agoonnimadii ahayn ma jiro
iyo markaan Soomaaliya joognoona la dacweeyay laakiin aan wali na xidhin meeshana mar baa la xidhay waxa la xidhay wiilashaas aad u geysaa tafsiirka ninka ii aqriya inta badan wuxuu ahaa Sheekh Umar Cabdullaahi Carab oo jilla oo reer macallin qolo leeyahay reer qudubka la degi jiray buu ahaa hadda xamar buu jiray waa dhubu meesha noogu yimid laakiin waxa caadi ii ahayd darsi kasta oo la gala hadaan arko inaan dhageysto darsi kasta inaan dhaafin hatta anigoo xamar tagay 80kii baa Sheekh Maxamed Guuleed nin la dhigin jirayo ay qolada salafiyiintii u wax sheegi jireen sawa suuratu naam ku jira nin aad u fasaxa badan buu ah oo aqoon badan darsigu galay baan hatta isaga taagoon dhageysay marka macnaha waxaan ka wadaa darsi aan arkay oo dhageysan karo waligay ma dhaafin noocu dooni ha ahaadee sheekhnimaduna saa ay ii raacdayo dhalinyarada waxa yar yar u soo marin jiray dhalinyaraduna barigii hore yareynay aanu jid waaqan dhex joogi jiray wahaabi baa tahay bay dhigi jireen wahaabi aniga hadda bahashan waligay ima galin dariiqada markaan tagay ima galin wahaabigu wuxuu yahayna ma garanayn sheekh baa ii aqriyay 67dii naxwaha noo aqri jiray meel biciida la yiraah 40ka markuu noo aqriyay laba xadiis baa Allah igu anfacay man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd daaca aan daliil lahayn inaan daacaysanin haday dadkoo dhan isu tagaan waxba kuma tari karaan waxaan u qaatay waxaan Allah inaan baryin marka waligay saasaan ahaa ilaana hadda aqeedadaydu waa sida haddana waxaan jeclahay intaan dhimanayo intaan noolahay inaan dadka wax u daraaseeyo kama daala daraasada 4 kitaabaan isku margala haddaan doono kama daala daraasada aniguna waxaan dadkeena la jeclahay aqeedada saxiixa inay qaataan ani taariikhdaydu waa sida hooyaday waa Faaduma Shar Umar Shar Maxamed waa qolo reer Sharif Cali la yiraahdo oo qulqulna qaar degaan qaarna xagaa degaan aabahina waa Sheekh Xuseen Cismaan Cali Cigaal abtir ahaan iyo degaan ahaanba gobolka Doolood baan nahay waa 8 ciyaalkaygu 4 wiil iyo 4 gabdhood marka siday laba wiil oo isku xigtayna ma jirto laba gabdhood isku xigtayna ma jirto 9 caruur ay dhalatay wiil gabadh talataaligaasay u dhashay wax guurka meher badan waan ritay intii gabadhan ka horeysay 4 meher baan ritay oo intaan galbeedkan joogay uuna waxba waxay iska ahayn iska meher buu ahaa gabadhan intii ka dameysayna markaan war dheer imid yaan gabadh ma jeerteena guursaday laba wiil oo mataana ay dhashay way dhinteen anigoo inaan guursado rabaa wiilka la xidhay markaasay niyadiiba i jabtay caruurtaydu waa 8 gabadhii u weyneed waxay jirtaa Kismaayo ii degan tahay wiilkii ku xigayna waa kan hogaanka nabadgelyada la shaqeeya waa kii la xidhay gabadhii ku xigtayna caruur leer ka sayleedo haday ila joogto habeen hore wiil u mushay gabadhii ku xigtay wareer bay deganta caruur bay leedahay wiilkii ku xigay ka kumu joogaayo reer ku leeyahay kii ku xigay waa kan meeshan macallimka ka ah hadana master buu ka diyaarinaya diridhabo markaan soo noqday labadii ii dhalatay 5 waxay ku dhasheen qaxootige kan soo noqday mid waa yarka xukuma telefoonada doolo tii u yaraydo 20 gaadhin ama 20ana ridwaalkay ka shaqeysa jaamacad bay ka baxday caruurteedu waa inta ardaydaadii ragga ka midka ay ka aflahay dad magacooda noo sheegto taariikhiyan inaan ku dararabna ardaydaadii waxaan ku xumahay sidaan idin sheegay 100 nin 200 nin 300 nin baan wax u galaa nin uu si gaar ah isu barana mooyaan nin aan bartay ma jiro laakiin ragga intaan day ogahay ninkan aan ilmo adeerkan ah Maxamed Cabdi Umal tafsiirka iyo alfiyaha ana waqriyay ma sha Allah niman Mareykanka jirana way jiraan wiil Cabdirasaaq Leila ma jeertaanahiyo ku islaantayda ilmo adeerihiin oo dayib la yiraahday iyo dad sidaa u kala firfirsan way jiraan dad sidaa u kala firfirsan way jiraan oo ay xaadirsanayn laakiin way badan yihiin meel hadda Soomaali joogto oo magacayga laga aqoonin ma jirto Mareykanka dad baa igala soo hadla aan garanayn Ingiriiska Koonfur Afrika meel walba dad baa ila soo hadlay marka xirta dad waaweyn oo xiraha ku jiro hatta waxa xirta kamid aha wiil Muuse Gumcalooho dhooba weyn degan hadda xirta wax aqrisu kamid aha way badan yihiin xirto aad bay u badan yihiin
intii ugu muhiimsanayd khayr Allah ku soo sheekh aad baad noogu jawaabtay هاي إن شاء الله هل حج على لهم طلبة العلم دردارا نادو دامود طلب العلم طلب العلم هرتوا واجب مجالس علم لغو هيو نينكا فديستا ملائكتا غربهeda dul qaban ninka talaabo cilmi u qaado u socana malaa'igta u ducayn dalab cilmi waa kida laakiin cilmiga dalabkiisa cilmigu aalo iyo cilmi weey waxaan hubaa ninkan carabi aqoonin cilmigu ku adag yahay cilmigu uu ku adag yahay waxaan kula talin dhalinyarada inay carabiga bartaan naxwaha waxa la yiraahdaa waa abul cilmi sarfigana waxa la yiraahdaa umul cilmi labadaas markaad barato naxwaha waxaad ku baran alfaadii iyo sida isu kala xigaan iyo aqrinteedii iyo shay waliba macnuhu faa'iideyn naxwaha ku baran iyo balaaqada sarfigana inta xarafka dambe ka horeysa xarakadoodii baad ku baran iyo luqada yaad ku baranaysaa marka waxaan dhihi lahaa nin kasta oo daalibul cilmi ah inuu carabiyada ku dadaalo kadibna anu naxwadu wuxuu ugu beermay anoo yar oo reer abtigay jooga yaa sheekh hooyadii ilma abtiyihiin oo reer qabridahara ah yaa galbeedka nooga tagay qolaa la socotay oo reerka reer abtigayaho wama kay waa iska fadhiisan jiray wama kayd macnan kayd man ka qabtay baaba idaafo haddana shariif hooyadii ilmaadeed yihiin baa iyo nin kala sheekaystay wuxuu ku yiri jiray Cabdullaahi Xaasho adu naxwada taqaan daalacashadu way ku dhib yartaa meeshaas horta naxwada iga beerantay aniga marka daalibul cilmigu laba mas'ala isku daraan taqwada Allah iyo cabsida iyo aqeedadooda ay saxiix yeelaan oo waa la yiri intay ka daayaan ilaahi baa sidaa yiri ay u soo gadoomaan iyo carbiyadayda ku dadaala هذا ملحي وحن أجرومي يا عمريدي ملحن سو أغرنا وطمك في هذا دماده أودنا وخارج المجلد كسيدات بنص على هناك على جوجاي برك إيش ساس هذا اللي يرد كل تاني عبسي ده الله يعرف يده يكب الله ما محول أوكا إن الكلام بلا نحو كنبح الكلاب بين هذه كلام كأن نحو لهين وأنا بحل الكلاب أي بوقت وحكى له لينا من فقيها مركز لا جوجت عمل كاغا إلى شو نين عربي يقان مركز لا جوجت أنا عرف كاغا إلى شو لينا لو حلو هو قبسن يجوا هذه فكرة أيام سنة نين عارف مركز لا جوجت قلبي كاغا إلى شو عارف دي قلبي قدرت أركب بمشي يجوا ساس إلا تايم وقتها مركز إن شاء الله ساس كل بالله إسكسون نقد وناك إلهي كابال مريو سيدا وشيخ نو أجيو ديغان كينا شيخ عبد الناصر حسين عثمان علي وشيخ وعلم بدن سيدا أنتم إن شاء الله تعالى waxaan go'aansanay inaan isaga waraysiga lambarkow kaga dhigno sida uu inoo sheegay rag waaweyn oo culimo aad ay uga aflaxeen deegaanka anagu intaan aqoon u leenahayna magaciisa guriga iyo meel walba waa laga garanaya insha Allah taala sheekha waxaan leenahay cid aan taariiftiisa garanayn maanta taariiftiisa ha qaadato ee Sheekh Cabdi Naasir kaliya uu taqaanay xaqu ka lugeeyo sheekhu sheegay uu lahaa dir dhabayla jigjigaan u lugeeyay waa 160 kilomitir weeyaan cid meelaha fog naga joogta isagoo tafsiir doonaya ayuu u lugeeyay sheekhu waa 160 kilomitir weey marka insha Allah taala waxaan leenahay culimada deegaankeena joogtada iyagana tusaalaha u noqoto dadka talabatul cilmigaana insha Allah taala dardaaranka uu sheekhu siiyay hala socdaan anigoo ah Sadiiq ayaa idinku qoran waraysiga sheekha kaameradana waxay noogu qoran Cad Fataax waxaan leenahay insha Allah taala xaqa iyo la socod wanaagsan culimada kilil ambisti iyo waraysigooda taariikhdooda in aan helno insha Allah idinkii maanta laga bilaabo waxaan rajaynaynaa sheekheennuna maadaama uu inoo bilaabay in aan waraysiga sheekhan ku horeysinay kuwa kalena inaan ku dambaysiinay insha Allah taala sheekha waan doorbidnay waxaan u doorbidnay ka cilmi ahaan baan u doorbidnay isaga inaan ku furno waxaan u doorbidnay ka akhlaaqiya ma sheekha u doorbidnay sheekha oo waxaan ku qiyaasnay jirin waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah ka raali noqdo Sheekh Cabdi Naasir waxaan leenahay culimada deegaankana ilaa quraadooda insha Allah waa la wareysan doonaa waxaan idin leeyahay maanta wareysiga waxa loogu qornaa Sheekh Cabdi Naasir Xuseen Ismaan Ali
waxaa insha allahu tacaala waraysiga idinku qoran oo waraysanaya waa Sadiiq kaamirada waxa idinku qoran waa Cabdifataax waxaan leeyahay sidaa iyo la socod wanaagsan waxayna gaar u tahay naadiga YouTube-ka naadiga Samawade wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh